caruurtu markay daraagiska bilaabaan dabcan marxalado kala duwan ay maraan صح marxalado ma jiraan cunuga markuu bilaabo laga soo celin kara ها أنا waxaa aaminsanahay bani aadamku wuu gafi karaa qof kasta dad mid weyn iyo mid yarba qofka qaladka wuu geli karaa bani aadan aan nahay qaladka laakiin waa laga gaari karaa caanada taale dabada qabasho waa la qaban karaa cunuga hadduu qaldamo sababa ku kaliftay waad ka soo celin kartaa daroogadu way ka dhaqi karaan nolosha weli rajadiisa waa fiican tahay kuwo badan ba intay ku dhaceen ka soo baxeen oo maasha Allah noqdeen oo wadaado noqdeen oo wax barteen oo shaqaysteen weli chance-ka waa jira adduunyada waa never too late wax walba waa la bedeli karaa qof kasta oo bini aadan uu qaldami karaa aniga waxaan qabaa dhalinyaradu haddii qaldanto way ka soo noqon kartaa berina ku ugu fiican buu noqon karaa hadduu maanta shalay qalad ka dhacay beri wuu saxi karaa yaa la niyad jabinin cunuga hadduu xitaa qaldamo yaa la niyad jabinin waxaan qabaa niyadda ha loo dhiso wixii shalay dhacana ha la ilaawo wax wanaagsan hala sameeyo dhalinyarada hala soo dhaweeyo dhalinyarada hala support gareeyo dhalinyarada hadduu qalad galo yaan la fogeynin ani Soomaalida bacdan ku arka waaye wiilkan dhalinyaro waaye shaydaana ka faa'iideystay cadowa ka faa'iideystay uu qaldamay waxay leeyihiin hebel saasuu noqday hadduu noqday macnaha kabcadi ma uusan soo duminine ilmahani shaydaana ka faa'iideystay soo dhaweey waa laga yaabaa cunugaas inuu noqdo cunuga beri ugu khayrka badan ugu fiican yaan la fogeynin wuu qaldamay hala saxo qaladkii hala caawiyo garab hala siiyo wiilasha dariiqda ku dayacan hala soo dhaweeyo maartay waxaan aaminsanahay inaanan la charge garin waxaan u sameey aanan lagu mashquulin caruurta garab hala siiyo